بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إسلام كنا dadku inay isxiriiriyaan iswanaajiyaan ayuu si fiican ugu baraarujiyay ama ugu booriyay dadku waxay isku jeclaan karaan ugu muhiimsan waxa kamid ah in wax la isku hadiyeeyo rasuulkeena kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu dadku kula dardaarmi jiray hadiyadaha in isa siiyaan hadiyad dabcan waxa weeyaan waxa jiro in la kala fahmo u baahan wax loo yaqaan sadaqo iyo hadiyad way laba kala yihiin hadiyad waxa la dhihi karaa qofkan sheygan waa lagu qiimeynaa waa lagu ixtiraamaya laakiin baahi ama daruuri uma ahan sadaqana waxa weeyaan qofka wuxuu u baahan yahay waana lagu sadaqeysanaha waa loo qarinaya hadiyada way ka duwan tahay sadaqada marka waxay ugu duwan tahay sadaqada waa qof baahan dhibaataysana wax la siiyay laakiin hadiyada waxay tahay qof aan markaasi baahnayn inaad wax u siiso walow qalin Allah ka dhigo waxaan xaqiiqo ah markuu qof wax ku soo hadiyeeyo shay ugu yar baa ahaado shaygaasi si gaar ah buu qalbigaada ugu yaalaa waana ku weyn yahay marka nabiga kaleey sallallahu alayhi tahaadu tahaababtu yani xadiiskii dheeraa oo hadlayay in salaanta la faafiya si dadku isku jeclaadaan waxa kamid ah marka waxyaabaha la isku jeclaadaay hadiyad isa siiya waad is jeclaanaysaan marka hadiyada maxaa ka iimaanaya marka waxa ka iimaanaya qofkii wax loo hadiyeeyay inuu qalbi u yeesho uu jeclaado walaalkii wax u soo hadiyay soo kala qofka wax hadiyeynaya naftirkiisa wuxuu dareemayaa nasasho ama dumaaninatul qalbi ama xasilooni buu dareemayaa maadaama walaalkii uu jeclaa ama walaashiis ay jeclaaday ay wax u ogolaaday yani ma aragtay una ka aqbalay sadarta marka waxyaabaha la isku hadeeyay waxyaabaha ugu qiimaha badan waxa kamid ah rumayga baa kamid ah oo yani waxa la jeclaada kamid ah waxa kamid ah catarka ama waxyaabaha carfo oo la isticmaalo marka qofku waxa uu ku hadiyay xitaa nabiga kaleey salaam wuxuu kula dardaarmay hadii xitaa waxa lagu hadiyay aadan rabin xitaa adigu ka aqbal oo ka qaado qofkaasi adigu marka hadarabto isticmaal hadarabtan cid kala siisi oo cid kale u sii hadiyay marka hadiyada markaan soo koobno waxaan dhigi karnaa waa waxa dadku isku jeclaan karaan sadarteed marka waxa muhiim ah inaan la socono u baahan hadii aan rabno hadiyad marka soo aad meel u socoto aad meel tageysid waxyaabo inaad sii qaado tusaale ahaan waxaad u socotaa guri adeerka habaryarta eedada walaasha u sii socotaa dadka aad u tageysid waa laba nooc waa dad waaweyn iyo dad yar waa caruur weeyaan caruurta hadiyadu u sii qaadaysaa say tusaale ahaan nanaci iyo waxyaabo u baahnaayeen haduu cilmiga ku jecel adeer baa keenay ama adeer walaalkay baa keenay abtigay baa keenay ku dhahayaan dadka waaweyn naftirkooda hadda awooddaada wax baad u geynaysaa isku mid ma ahan qof hadii intuu guri kugu yimaado ama aad booqato ee adoo gacan maran aad u tagto iyo maxaan ku yiraahdaa qofkii oo aad wax gacanta aad ugu geyso wax uun aad yani maaragtay bacad wax ugu geyso ama baag ama boorso wax uun ugu geysay xaqiiqatan isku dabci ma isku niidna ma ahan laba qof way kala duwan yihiin marka sadarta marka salaamkan wuxuu aad noogu baraarujin walaalayaal hadiyada iyo xiriirinta inaan ku dadaalno si aan isu jeclaano